wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo maanta dib ugu soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulamadii magaalada Dhuusamareeb kula qaatay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulamadaasi looga hadlay qaabkii loo dhameyn lahaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo sidii xal loo gaari lahaa muranka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in la wadaagi doono waxyaabihii ka soo baxay wada hadaladii magaalada Dhuusamareeb ku dhex maray madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulamadii wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu Dhuusamareeb kula qaatay madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa warar soo baxay waxay ku soo waramayaan in madaxda Galmudug shuruudada ku xireen inay la heshiiyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wada qorshe ah in deegaanada Galmudug ka dhaco doorasho yeeshee madaxda Galmudug ayaa waxay sheegeen in 2019 deegaanadaasi aysan ka dhici karin wax doorasho ah. Hase yeeshee wasiirka ayaa waxa uu tibaaxay in faahfaahin guud loo wadaagi doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Wixii arintani ku soo kordhay kala soco Maanta TV.